نبتقليو أو عثمان حسنة نبتقليو أنا حسين محمد يا إسماعيل حاج عبدي يا أحمد إسماعيل سمتر. This is London calling in the African service of the BBC. halkani waa London oo idinkala hadlaysa laba mawjadood oo gaaban 11 iyo 13. hadalka aad maqasheen waa codkii Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Ducaale oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee ka hadla laanta af Soomaaliga ee BBC-da. dad badan ay ka warhayaan ninkii ugu horeeyay ee ka hadla laantan af Soomaaliga ee BBC-da wuxuu ahaa Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Ducaale markii laantan af Soomaaliga ee BBC-da la bilaabay 1957 Xaaji Cabdi waxa uu 67 siiyay waraysi BBC-da waxaana waraystay Xuseen Maxamed oo markaa ka tirsanaa BBC-da waxaana uu weydiiyay dhibaatada haysata dadka ka shaqeeya idaacaduhu marka ay ajnabiga u turjubayaan af Soomaali waxaana ku jawaabay horta ereyada ugu adkaa waxa weeyaan ereyo hadiyo jeerba xaganimada laga hadlo oo yeelma laga hadlo oo la arko inaan waxa ka mid ahaa waxa soo qaada ereyadan siyaasadda oo dhan waa ereyo af Soomaali ku adeeg oo aan u helin Soomaali anga waxa ka mid ah kuwa yeelan ku sheegay hadda jeer lagu hadlo kan iyo expression iyo waxyaabo aankaas ayaa ugu daraa hadaba waxay dhibaato tahay waxa jirtay niyaad u malaynaysa afkan waa qani oo eriyo badan baa laga helayaa inkastoo afkan cid raadisa ama cid soo saarto eriyo ku darta aanu lahayn oo ay ku xiran tahay in afkii hore ee aabayaashin iyo awooyaashin inooga tegeen oo ay iskaga hadallo haddana afkiinu waa hodan waxaan ku diiday مثلا erayada maanta cusub ee la isticmaalo adduunyada xagga siyaasadda marka aynu eegno waxa ka mid ah siyaasadaha lagu yaqaano dhexdhexaadka non-alignment left wing crooked talent sustaining spacecraft iyo erayo badan oo xagga kan cilmiga kan science ay soo geliyeen afafka oo aynan inagu berigii hore markaynu dee Soomaali ahayn degmadeenu inay ku koobnayd magaalooyin waxa soo dhan lahaan jirin iyo reermiyi aanay isticmaali jirin waxa aan ku weydiiyay erayadaasi maxaad kula tahay sideen aynu erayo Soomaaliyeed oo la gudbin ugu heli karayna waxa jira beedweyn in la wali oo u dhayo amar hargeysa ka qayb galay erayo fara badan oo erayada casriga ah ee siyaasiga ah oo erayada Soomaali ku habboon in lagu sheego oo inta waa laga shaqeeyaa taas waxa la arkaa in markay soo baxdo wuxuu u tarayso mudiciinta ka habayay dacda oo sababtay u tarayso ay tahay erayada oo loo helo oo yimaada waana lagu fikiraya ma sameeyo yaa Soomaaliga oo kan gacanta lagu hayo qoris waxa kale oo ay weydiiyay Xuseen Maxamed Xaaji Cabdi Ducaale wixii ugu tiraya badnaa ama ugu farax badnaa ee uu la kulmay intii ay war sheegayeen taasi way wamid balaaran hadii su'aasha لواي مايو وحياة بدن أو نحن كنا لكن كان أنا كذا حبلي وحياة بعني أفر يكونتم كي أولي بل كي رجال إلى الأنجلي وينوري وقومم والمريض أسأل إنه يهد محاكو فرح بدنا أنت إذا عندك شيء يصير ورد ودي جاي أنا بدي سوق وريش ورك ورا سنة محاكو فرح بدنا وحياة فرح بدنا إذا أنت اللي يسوي ما يو بركي اللي يريد يقول لي ما يوهي كل يستقال بونا إذا لقيت أنت بيجون لحية لباسين كذي